farxad bay noo tahay galabtay in aan u joogno halkan laantii ugu horeysay ee bangiga dhexe in laga furo dowlad goboleedka Galmudug caasimadiisa Dhuusamareeb. waa kaaga mahad celinaynaa madaxweyne inaad nagala soo qayb gashay guud ahaan inaad hawl weyn oo muhiim ah dalka maanta ka wado oo ah ka xoreynta kooxaha qawaarijta deegaanada ay kulli ku sii harsan yihiin taasna aad u dooratay meeshii aad u fadhi lahayd ama ka hogaami lahayd Galmudugna waxaan mahad gaar ah ku celinaynaa oo aan kaaga amal hayno. iyadoo dagaal lagu jiro oo dagaalkii qawaarijta dhamaystirka kooxahaas nafl caariga aan ku jirno in haddana dib u dhiskii iyo horumarkiina socdona sharaf kale noo tahay oo aan gacanna ku xoreynayno gacanna lagu dhisayo dalka. mudane madaxweyne laantan inaan nahay dowlad goboleedkii koowaad oo ka faa'iideysta halka laga furo waxaan is leenahay dadaalkii iyo horumar jecladii iyo sidaan waayaha nooga go-oneed xasuubduubkii aan ku jirnay qayb ka tahay waxaan dhiirigelinay madaxda bangiga waxaanan soo dhaweynay sidii laanta loo furi lahaa. halkan waxaan ka heli doonaa ama ay ka heli doonaan bulshaweynta reer Galmudug adeegyo badan oo bangiga dhexe uusan issaamaxaynin inay markii hore helaan maanta gurigoodii iyo caasimadoodii lagu keenay. waxay noo tahay iyadana in laga faa'iideysto insha Allah. annaga madaxweyne shay kasta ama wax walba dib u dhacay oo naga maqan oo horumarka iyo dib u dhiska dalka ah waxaan dowlad iyo shacab haddaan reer Galmudug isugu tagnay inaan soo celino. marka meel kasta oo ay naga jirto albaab kasta oo u garaacnaa waanan ku ammaanaynaa inay noqdeen madaxda bangigu ay naga aqbaleen markay arkeen kolley nin jiifa looma yimaadeen orodkayga markay arkeen inay number 1 naga dhigeenna waan ku ammaanaynaa. marka madaxweyne guud ahaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida dalka dib u dhiskii hawshiisa iyo dadaalkiisa u socdo inay waqti aan dheerina noo dhamaystiranto inaan ka xorowno Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Galmudug kooxaha qawaarijta ah iyo shartooda. aad iyo aad baan mar kale waxaan ku leenahay madaxweyne halka inaan kugu ammaanina waan kaga mahad celinaynaa inaad u fadhido Galmudug iyo deegaanada Galmudug inaad xoreyntii guud ahaan dalka gaar ahaan Galmudug. waxaan leenahay reer Galmudugna fursadaas madaxweynuhuna siiyay sida gaarka waa ka faa'iideysan doonaa waana u istaagaynaa dhammaanteen waana isugu tagaynaa inaan ka dhamaystirno dalka in Galmudug iyo dalka inta kale intaba. waxaan ku leenahay madaxweyne aad iyo aad marar badan kugu ammaanina kugu mahad celinaynaa.